kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba waa joogtaan kusoo dhawaada falanqeynta doorashooyinka ee telefishinka SBN Somali TV waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdikariin Mursal in ka yar 72 saacadood ayaa ka dhiman xilliga loo asteeyay inay qabsoomi doonto doorashada Soomaaliya 15 May ee bishan iyadoona musharaxiinta si weyn ay ugu jiraan ololahooda doorashada waxaana si weyn looga dareemayaa magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelada qaar iyadoona ay socoto isxodxodashada ee musharaxiinta iyo waliba xildhibaanada maanta waxaa magaalada Muqdisho gaaray qalbi dhagax oo isagu horay loogu dhiibay dawladda Ethiopia waxaana sidoo kale raali gelin ka bixiyay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble maanta ahayd maalintii ugu dambeysay ee khudbad jeedinta musharaxiinta ayaa waxaa maanta khudbadooda halkaasi ka jeediyay musharaxiin miisaan culus ku dhaxlay siyaasadda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha haatan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhammaantoodba uu ka dhaxeeyo loolan xoogan oo siyaasadeed inta lagu guda jiro doorashada iyo qabanqaabadeeda waxaana sidoo kale kamid ah dadkii halkaasi ka hadlay Dani oo isagu ah madaxweynaha maamulka Puntland hadaba qodobadaasi ayaa kamid noqonaya qodobada aan falanqeynteena caawa ay doorashooyinka idinku soo gudbin doono waxaana qayb ka ahaan doona musharaxa ugu daada yar ee u tartamaya qabashada xilka madaxweynimo ee Soomaaliya sidoo kale waxaa walaac ka muujiyay tabinta wararka la xiriira doorashooyinka 15 May warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada Muqdisho qodobadaasi ayaan falanqeynteena doorashooyinka ee barnaamijka ama telefishinka SBN Somali TV ayaan ku soo qaadan doonaa ee mar kale ku soo dhawaada barnaamijka وهاجاك كلنتي wanaagsan mar kale waxa lagu jira saacadihii ugu dambeeyay ee xilliga loo asteeyay inay qabsoonto doorashada Soomaaliya oo ku beegan 15 bishan waxa socdo olole xoogan oo musharaxiinta iyo xildhibaanada ay isku wareysanayaan isla markaana musharaxiinta ay balanqaadyo xoogan u sameynayaan xildhibaanada la filayo inay soo doortaan ama soo saaraan cidda hogaamin doonta Soomaaliya 4 sano ee soo socota hadaba waxa mashquul ah hoteelada qaar ee magaalada Muqdisho oo ay degan yihiin musharaxiinta iyadoona haatan hoteelada qaar laga dareemayo kulamo gooni ah oo ay yeelanayaan musharaxiinta iyo waliba xildhibaanada magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa diyaar garowga xoogan ee doorashada la filayo 15 bishan inay ka qabsoonto magaalada Muqdisho hadaba si aan u ogaano xaaladda magaalada Muqdisho iyo waliba ololaha doorashada waxa qadka si toos ah ugu jira Cabdullaahi Yariisow oo aan ugu horeyn weydiinayno xaaladda magaalada Muqdisho iyo waliba waxa laga dareemayo ayaa Cabdullaahi Yariisow bal nooga warbixi wararkii ugu dambeeyay ee ku aadan doorashada iyo waliba musharaxiinta iyo loolankooda aad u mahadsantahay guud ahaan magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa xodxodashadii ugu dambeysay diyaar garowga loogu guda jiro doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya ee la filayo in ay ka qabsanto magaalada Muqdisho 15 May oo ku beegan maalinta Sabtida ah guud ahaan dadka magaalada Muqdisho hoteelada lagu caweeyo iyo goobaha la iskugu yimaado inta badan waxaa laga dareemayaa in dadku inta badan ay ka hadlayaan hadba musharaxa markaasi ay taageersan yihiin waxaana guud ahaan saameynta doorashada lagu wada dareemayaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan deegaanada hoos yimaado iyadoona hadal haynta ugu badan 24kii la soo dhaafay ay ahayd arrimaha la xiriira u diyaar garowga doorashada dhanka kale hadii aynu eegno musharaxiinta oo ku dhow ilaa iyo 40 sida la xaqiijiyo waxa inta badan ay ayna dhankooda kala jiidasho ama shukaansi xodxodasho la xiriirta hadba dhanka ay u rabaan in ay u dhacdo ay ka wadaan hoteelada magaalada Muqdisho gaar ahaan xildhibaanada ayaa iyaduna laga dareemayaa in ay aad u mashquulsan yihiin xaaladda magaalada Muqdisho ayaa ah mid markaasi kacsanaan la xiriirta olole bandhigeed
ay wadaan guud ahaanba musharaxiinta markaasi ay ka kala dhacayeen habeenadii lasoo dhaafay gudaha magaalada muqdisho, iyadoona habeen dambe lagu waday in magaalada muqdisho bandhig weyn uu kusoo bandhigo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyadoona markaasi taageerayaasha xisbiyada markaasi ku tartamaya ama shakhsiyaadka u ololeynaya in ay sanadkan kaalin muuqda ay ka qaataan ama ay ku guuleystaan doorashada kulligood ay yihiin kuwo rajo doon ah. Wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena ayaanu kusoo bandhigi doonaa guud ahaanba xaaladda la xiriirta arrimaha doorashooyinka, annagoo hadba wixii kusoo kordho markaasi daawadayaasheena la wadaagi doono. Cabdikariin aad ayuu mahadsan yahay wariye Cabdulaahi Yarisow oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho nooga warbixinayay xaaladda magaalada iyo waliba sida looga dareemayo ololaha doorashada. Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo horey loogu dhiibay dowladda Ethiopia kana tirsanaa ururka ONLF ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana si weyn xafiiskiisa ugu soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku soo dhaweeyay isla markaana ku qaabilay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, waxaana uu sheegay inuu ka xal marinayo dhibaatadii loo geystay iyo dhibistii loogu gacan geliyay dowladda Ethiopia. Anigoo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed ayaan mar kale ka xal mariyay gaboodfalkii ka dhanka ahaa Soomaalinimada ee loogu gacan geliyay dal shisheeye, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Mar uu la hadlayay warbaahinta, Ra'iisul Wasaaraha uu ka hadlayay arrintan ku saabsan Qalbi Dhagax ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa: waxaa farxad ah in aan halkan ku qaabilo hoolka shirarka ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, oo aan maanta ku qaabilo walaalkay Cabdikariin Qalbi Dhagax oo dalka muddo ka maqnaa. sababta ugu maqnaana ay ahayd in hoolkan aad maanta u jeedaan lagu go'aamiyay in walaalkay halgamaha Qalbi Dhagax dalka laga musaafiriyo, loona musaafiriyo dal kale oo shisheeye, looguna dhiibo si gardarro ah. runtii shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ku mahadsantihiin sida qiirada leh, sida wadaninimada leh, sida ehelnimada leh, sida walaaltinimada leh aad uga gubateen oo aad uga dhiidhiseen. runtii aniga markaan halkaan imid waxaan Ilaahay ka baryi jiray in uu maalin igu aadiyo, igu simo in aan dhibkaas dhacay ee looga gardarana walaalkay halgamaa Cabdikariin Qalbi Dhagax si xaq darrada loogu dhiibo dal shisheeye aan xuquuqdiisii muwaadinimo dalnimo aan dib ugu soo celiyo. waxaan ka codsanayaa inuu nacafiyo. waa ka xumahay raggii dhibkaas geystay inay maanta joogaan, xukuumaddii iga horreysay iyo madaxdii iga horreysaba ay waddanka joogaan, welina aan laga haynin raaligelin. laakiin anigoo ku hadlayo magaca xukuumadda hadda joogto waxaan leeyahay walaal soo dhawow, waa kaa raaligelineynaa, dalkaagii hooyo ayaad joogtaa. tallaabooyin badan ayaan qaadnay golaha wasiirada oo lagu ansixinayay in dembigii lagaa galay dib looga noqdo. waxaa iyadana ka mid ahayd in jabhaddii xornimo dagaalanka ee ONLF Soomaali Galbeed aan iyadana dhahnay ma ahan terroriste, ma ahan argagixiso, oo aan ku cadaynay shacabka Soomaaliyeedna aan wagaas u cadaynan, haddana u cadaynaynaa in iyagana naga raali noqdaan maadaama iyagana maalintooda aan sugayno madaxda jabhadda ONLF in marka ay dalka yimaadaan madaxdooda sidaanoo kale munaasabad aan u samayn doono. inkastoo waqtiga ugu gaaban yahay, laakiin waxaan leeyahay hal is cafiyo, soo dhawaada. waxaa farxad ah intaas kadib Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaa isaguna dhankiisa hadlay oo waxa uu si weyn uga mahad celiyay Ra'iisul Wasaaraha soo dhaweynta iyo waliba qaabilaada ay u sameeyeen. mudan Ra'iisul Wasaare waan kaaga mahad celinayaa sida aad runtii iigu maamuseen soo dhaweynta aad sameyseen iyo shaqadii aad soo qabateen. waxaan ognahay oon runtii aan la ilaawi karin idinkana mahad celinayaa go-aankii xaqdarrada ahaa ee laygu xukumay, ee laygaga saaray waddanka, ee argagixiso laygu xukumay inaad ka daba tagtaan ood meesha ka saartaan.
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa idinka mahadcelinayaa sidoo kale waxaan jeclahay iyagana inaan u mahadceliyo baarlamaankii labadii gole shacbiga Soomaaliyeed oo ayaguna si buuxda u qaadacay go'aanka xaqdarrada iyo karaamad darrada ee ka soo baxay xukuumadda xilligaa jirtay ee go'aamisay inaan anigu argagixisahay ururkayguna argagixisan yahay waa idin mahadcelinayaa dhammaantiin 2017 ayay ahayd markii Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax loo gacan geliyay dowladda Ethiopia waxaana ra'iisul wasaaraha ugu mahadceliyay soo dhaw 2017 ayay ahayd markii Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax loo gacan geliyay dowladda Ethiopia waxaana maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoona soo dhaweyntiisa ay dadka siyaasadda falanqeeyo ku macneeyeen olole doorasho oo kooxaha mucaaradka ay ku riixayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta oo ahayd maalintii ugu dambeysay khudbadaha musharaxiinta ay ka horjeedinayaan baarlamaanka inkastoo kuraasta ay cidlo ahayd oo aysan jirin xildhibaano badan oo goobtaasi ku sugnaa ayaa khudbadahaasi maanta la soo gabagabeeyay iyadoona maanta ay hadleen ilaa iyo 20 musharax oo u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya halka shalaytana ay hadleen halka shalayta ay hadleen 20 musharax oo ka tirsan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo maantana waxaa halkaasi ka hadlay 19 musharax oo ay ka mid yihiin musharaxiin miisaan culus ku dhaxleh siyaasadda Soomaaliya haddaba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbadiisa halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu ku dheeraaday waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xafiiska joogay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa taas waxay keentay political stability keentay xasilooni siyaasadeed bay keentay waxa ugu horeeya aan soo celin waxay ahayd civil aviation oo muddo dheer 30 sano ku dhawaad ee dalka dibadiisa looga shaqeynay khaasatan magaalada Nairobi ee Kenya waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dastuurkii oo meel fiican soo gaarsiinay oo hadda sugaya ilaa la gaaro heshiis siyaasadeed sugaya cutubadiisa kulli ay dhamaadeen waxaan aadnay safarro aan ku bixinay Puntland iyo Galmudug halkaas oo dadka Soomaaliyeed aan ku soo boqornay iyo xaaladaha ku jiraan waxaan noo suurtooday inaan dadka Soomaaliyeed ee galkacyo degan aan dib u heshiisiin u sameeyno oo muddo dheer ku dagaalamayay magaaladu ay kala go'oneyd waxaan ka shaqeynay inaan odayaashii dhaqanka isu keenno oo aan magaalada isu furno dagaal dambana uusan ka dhicin sidaas oo kale magaalada Caabudwaaq 5 qaybood u qaybsaneyd 7 sano dadka isuma gudbeenin dib u heshiisiin ka sameynay ilaa haddana waa isu furan yihiin magaalada Marka oo ugu dambeysay oo iyada naftigeeda muddo dheer dib ku jirtay waxaan geynay dib u heshiisiin dib waxaan u soo celinay wada hadalkii Soomaaliya Somaliland waxaan diidnay shisheeye faragelintiisa waa diidnay pressure in la saaro waa diidnay wax ay rabeen inaan yeelno maxaa yeelay annaga waxaan loo doortay noo dhaariyay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danteeda taas waxay keentay inaan ku guuleysanay murankii badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay muddo dheer kadib waxaan ku guuleysanay UN Human Rights Commission ilaa xaaladda siyaasaddu way degan tahay oo khilaaf ma jiro oo markii labaad naloo doortay waxaan ka shaqeynay oo aad iyo aad aan u soo dhaweynay dalka inuu galo qof iyo cod way ogtihiin shaqo badan aan qabanay baarlamaanka waa keenay sharciyan keenay waa naga diiday sharci kale aan keenay kaasoo keenay inaan ku dhamaano doorasho dadban laakiin wax alla wixii awoodeeda ahaa karaankayga ahaa waa gaarnay tan ugu muhiimsan warbaahinta madaxa bannaan ee ka jirta gudaha Soomaaliya ayaa maanta walaaca ka muujiyay in ay ka qayb galayaan doorashada iyo waliba in kale iyagoo tabanaya cabashooyin badan oo ay ka mid yihiin in guddiga qabanqaabada ay ula dhaqmeen si anshax darro ah haddaba waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha TV-ga Universal iyo waliba agaasimaha TV-ga RTN waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan aad iyo aad uga xunnahay waxa lagu sameeyay amana lagu sameeyay hadana saxaafadda madax bannaan
ama saxaafadda private-ka ah annagoo u shaqaynayna dalka kuna shaqaynayna xaalad adag in lagu daro xurmad darro wax la aqbali kara ma aha sida uu sheegay walaalkay Fuaad cabashada markayna soo gaartay habraaca markaan aragnay guddigan la fariisanay guddoomiyahooda noo yimid cabashada waa u sheegnay waxay yiraahdeen maalinta koowaad aan tijaabinaynaa waxa ka shaqaynaya laakiin maalinta dambe wax baan ka bedelaynaa waxaa muuqata marka in wiilashii iyo gabdhihii aan meesha u dirnay si dhaqan xumaa loola dhaqmay si aan ixtiraam lahayn loola dhaqmay waxaas loo sameynayana annaga waxaan isleenahay faraa ku godan saxaafaddu ha xanaaqdo dagaal ha gasho wax ha dumiso annaga wax ka duwan wadanaa ma xanaaqayno ma dagaalamayno laakiin waxaan leenahay waxana la ku sameeyay in la ku sameeyo ma ahayn waxaan aqbalaynana ma aha aan ku qabanayno magaalada Muqdisho shirkan muhiimadiisa ugu weyn waxaan uga hadlaynaa cabasho warbaahinta ay ka qabaan isla markaana la hor istaagay qaabkay u tabin lahaayeen doorashooyinka dalka ka socda shalay iyo maanta waxaa jirtay khudbadaha murashaxiinta waxaa dhacday in wariyaasha loola dhaqmay si aan loola dhaqmi jirin doorashooyinkii 2012 iyo 2017 oo labadaba dalka ka dhacay sidaan isku mid ahna doorashooyinkii u dhaceen sidaan ogsoonahay 2012 iyo 2017 warbaahin walba oo dalkan ka diiwaan gashan waxaa loo ogolaa 2 qofood iyo agaasimahooda si ay meesha u tagaan xaaladda jirtay u soo tabiyaan telefishinada qaar qof walba si gaar u live-kiisa u jeedsan jiray dadku wareysan jiray waxa uu soo tabin jiray waxa meeshaas ka jiro laakiin doorashadan waxaad moodaa in wixii hore ee dalka ka dhici jiray ay gabi ahaanba ka duwan yihiin waxaa dhacday in annagoo guddi dhowr ah oo ilaa 10 agaasimo ah aanu tagnay aqalka sare aan la kulannay guddiga doorashooyinka maamulaya waxaan ka codsannay sida aan wax u rabno waxay noo sheegeen markaas in ay qorsheeyeen in gudaha aan la geli karin oo qol ku dhegan teendhada afisiona ay wariyaasha ku xarayn doonaan halkaas ay u taalo dhalo ay ka soo tabin doonaan taa waxay kaga duwan tahay male wariyo walba inuu xafiiskiisa jooga oo dhaladiisa uu ka soo tabiyo sababtoo xafiis walba dhale televisional live aan u daawanaynaa haddii wariyaha halkaas intuu aado qol lagu xaraynayo xafiisyada intay joogaan aan dhihi karnaa halkan ka tabiya intii ay socotay khudbadii uu halkaasi ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay arinta ku saabsan taariikh nololeedkiisa isagoona sheegay inuu wax badan ka qaban karo dawlad dhiska Soomaaliya iyo waliba dadajinta federaalka ay Soomaaliya ku heshiisay aan ballan qaadayaa qof muwaadin oo Soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin aan ballan qaadayaa qof Soomaali ah fikirka siyaasiga uu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaabin waxaan idin ballan qaadayaa dalka qaybo kamida iyo deegaanada qaybo kamida inaanan lagu soo rogaynin cunaqabatayn iyo cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed waxaan idin ballan qaadayaa dalka inay ka dhaqan gasho dib u heshiisiin taas oo 2 qaybood ama 2 waji leh dib u heshiisiinta bulshada oo deegaanada iyo degmooyinka maxalliga iyo beelaha dhexdooda ka socod doonta iyo dib u heshiisiinta siyaasadda oo dadka Soomaaliyeed aan doonayna inay asaas u noqoto dib u heshiisiintooda siyaasadda dastuurka dalkan oo yeelanayo haddii dastuurka lagu heshiiyo iyo qodobadiisa oo dhan oo dadka Soomaali isla qaataan waxaan aaminsanahay dib u heshiisiinta siyaasadda inay meel gaartay laguna dhaqmi doono haddii alla yiraahdo وهاجاك داوديال قضبكاسي ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena falanqeynta doorashooyinka ee telefishinka SBN Somali TV waxaana idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdikariin Mursal Farax Karkaja intaan markale ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafeynaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.